السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان معاميش مراسل.com كسر دوادة مقال كوبان عن الشرحات بالعرض كبحين دونه برنامج جاي دوان دافتر شركة مراسل ويقوم قعدرتي لا شقيس مراسل برنامج كان أيا وحوقفك ولا شقينا يا هبد دلالما مركا الله هي وحن كوضا qofka adeegan isticmaala waxa uu keenin doonaa qof kadib qofkaasi marka uu shirkadda alaab ka iibsado qofka waxa uu ku yeelan doonaa commission kaas oo waliba mari doona 3 level oo kala sareeya kaaga muuqato halkan levelka kood waxa loo yaqaan waa silver levelkan ayaa waxa uu commissionkiisu ka bilaabmayaa 1% ilaa 4% soo kale halkan waxa inooga muuqda qiimayaasha alaabtu inta u dhaxeeyo laga bilaabo $10 ilaa $150 inta u dhaxaysa waxa uu qofku ku yeelan doonaa commission ah 1% soo kale laga bilaabo $150 ilaa $300 waxa uu qofku ku yeelan doonaa 2% $300 ilaa $500 na qofku waxa uu ku yeelan doonaa 3% halka uu kaga yeelan doono $500 ilaa $1000 na 4% haddaba balaynu tusaaleyno kaba soo qaad waxa tahay qof isticmaala adeegan waana isdiiwaan galisi kadib waxa ku soo xidhay shirkadda qofkii ayaa waxa uu iibsaday alaab qiimaheedu yahay $300 kadib waxa doonaysaa inaad ogaato commissionkii amba lacagtii aad ku yeelan lahayd qofkaas saad ka arkayso halkan $300 waxa uu ku jira alaabta amba qiimayaasha lagu qaadanayo percentage ah 2% kadib waxaan isku dhufan doonaa 2%tigii qofka aad ku yeelanaysay iyo alaabtii qiimaheedu ahaa $300 waxay noo soo baxay inaynu qofka ku yeelan doono $6 oo lacag ah haddaba bal talow qofku sidee ayaa ugu gudbayaa levelkan ka sareeya ee level 2 ga amba aynu naqaano go level waxa uu qofku ugu gudbi karaa marka ay gaaraan dadka uu ku soo xidhay shirkadda 15 qof يعني markaad ku jirtay levelkan silver levelka amba level 1 dadkaad ku soo xidhay shirkadda ee lagu diiwaan galiyay marka ay ku gaaraan 15 qof waxaad si toos ah ugu gudbi doontaa levelkan ku xiga oo ah go level waxaan u soo gudbay levelkii labaad oo ah go level haddaba markaan imaado levelkan bal maxaa isbedelaya waxa ugu horeeya isbedelaya waxa uu noqonayaa sida halkan kaaga muuqata waa commissionkii aan ku yeelinay alaabta commission kan ku yeelanay alaabta waxa uu ka bilaabmayaa imika 2% ilaa 5% halka markii hore uu ahaa 1% ilaa 4% sidoo kale markii hore aan ku jiray level 1 lacagta laga bilaabo alaabta qiimaheedu $10 ilaa $150 waxaan ku heli jiray percentage amba commission ah 1% halkan imika kaga helayo 2% haddaba anigoo ku jira levelkii labaad oo ah go level ayaa waxaan keenay qofkiina sidii markii hore kale waxa uu iibsaday alaab qiimaheedu yahay $300 bal talow maxaan ku yeelanayaa commission amba lacag saad ka arkaysa halkan $300 waxay ku jirtaa alaabta lagu heliyo commissionka 3% kadib waxaan isku dhufan doonaa 3%tigii waxaan ku dhufan doonaa alaabta qiimaheedii oo ah $300 waxa ii soo baxay inaan qofka ku yeelan doono commission ah $9 haddaba waxaad bartan ka arkaysaa iminka markasta oo uu sii kordho levelkaagu in uu la kordhayo commissionkaad ku yeelanayso dadka aad ku soo xidho shirkadda haddaba bal sidee ayaan uga gudbi karaa levelkan level 2 amba go level anigoo u gudbaya levelka saddexaad oo ah platinum level waxaan ugu gudbi karaa levelka saddexaad aynu soo bixinay platinum level marka ay gaaraan dadka aan ku soo xidho shirkadda 25 qof waliba intii aan ku jiray levelkii kan ka horeeyay ee go levelka waxaan markaas si toos ah ugu gudbi doonaa levelkan saddexaad isagoo waliba commissionkiisuna sida bartan aad ka arkayso uu ka duwan yahay amba uu ka sareeyaba labadii level ee hore commissionka lagu qaadanayo levelkan ayaa waxa uu ka bilaabmayaa 3% ilaa 6% waxaana sidoo kale arkaysaa markii hore leveliskii hore intii aynu ku heli jirnay commissionkaba in uu dhamaantood ka farabadan yahay bal haddaba tusaale aynu soo qaadano adigoo ku jira levelkii saddexaad amba levelkii ugu sareeyay oo ah platinum level ayaa waxaad keentay qofkiina waxa uu iibsaday alaab qiimaheedu yahay $300
bortalo maxaad commission ku yeelanaysaa saad ka arkayso halkan $300 waxay ku jirtaa lacagta lagu yeelanayo markaad ku jirto levelkan saddexaad 4%. kadib waxaan isku dhufan doonaa 4%, waxaan ku dhufan doonaa qiimihii alaabta oo uu ahaa $300. markaynu isku dhufanay waxay noo soo baxay in qofka aynu ku yeelan doono lacag dhan $12. alaabta lagu qaadanayo commissionka amba loo isticmaalayo adeegan ayaa wuxuu yahay dhammaan alaabta ay iibiso shirkadu sida kombiyuutarada, mobileska iyo waxyaabaha kale faraha badan la iibiso shirkadu. laakiin waxa ka duwan iyagu alaabta niyuuga amba mobilada niyuuga ayaa iyagu ka duwan. mobileska niyuuga waxaa lagu heli doonaa commission isku wada mid ah dhammaan saddexda levelba laga bilaabo $10 ilaa $300. waxaa lagu yeelan doonaa commission ah 1%, halka lagaga yeelan doono $301 ilaa $500 2%. laakiin mobileska kale sida kuwa usirka, kuwa refurbishedka iyo kuwa kale globalka ah waxa iyaga lagu heli doonaa commissionadii hore u soo sheegnay ee kala duwanaa. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u soo fahantay barnaamijkan iyo qaabka uu shaqeynayo. imikana aad isweydiinayso barnaamijkan waan ku qancay laakiin sidee ayaan isku diiwaangelin karaa? haddii aad tahay qof jooga magaalooyinka ay ku leedahay shirkadu xafiisyada sida magaalada Hargeysa, Burco iyo Boorama, waxaad si toos ah u booqan doontaa xafiisyada shirkada adigoo halkaas iska diiwaangelin doona. bushaarada kale ee ku daraya ayaa waxay tahay in laga bilaabo waqtiga aanu soo gelino fiidiyogan ilaa dhamaadka bishan ay free ahaan doonto lacagta iska diiwaangelinta ee laga qayb qaadanayo barnaamijka. waxaad kaliya soo qaadan doontaa waxa uu noqon doonaa hal sawir oo si fiican u muuqda laguna dhajin doono ID card-ka lagu siinayo. haddii se aanad ahayn qof jooga xarumaha amba goobaha ay ku leedahay shirkadu xafiisyada, waxaad nagala soo xiriiri doontaa WhatsApp numberkaan idin dhigi doono commentiga ugu horeeya fiidiyoga iyo muuqaalkan qoraalka ka sareeya.